akhyaarta sharafta badan kusoo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida Tube oo aan alaaba idinkugu soo baahino barnaamijyo xiiso badan. Fadlan inta aanan gudagelin barnaamijka, haddaad naga cusub tahay nagu soo biiro oo taabo batamka casaanka ah ee subscribe-ta. Sidoo kale hanaga ilaawin in aad like inoo saadid si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Laba gabdhood oo Hindi ah ayaa helay asteroid-ka kaas oo si tartiib tartiib ah una wareegaya dhanka dhulka. Labada gabdhood ayaa lagu kala magacaabaa Radhika Lakhani iyo Fadihi Fikiria oo labaduba wax ku baranayay fasalka 10aad. Waxay ka shaqaynayeen mashruuc dugsi markii ay ogaadeen asteroid-ka oo ay ugu magac dareen HLV 2514. Gabdhaha oo ka yimid magaalada Surat ee gobolka galbeedka Hindiya ee Gujarat waxay ka qayb qaateen mashruucyadan loo yaqaan Space India iyo NASA, kuwaas oo ardayda u oggolaanaya inay falanqeeyaan sawirro laga qaaday taleefanno ku habboon oo laga taagay jaamacadda Hawaii. The Hubble Telescope wuxuu ka qaaday muuqaal aad u cad oo xagaa ah. Satan Akash Dwivedi oo ah bare sare ee cilmi-baarista iyo cilmi-baarayaasha codbixiyayaasha ee Space India wuxuu u sheegay CNN in ardayda ku nool India oo dhan la baray sida loo arko unugyada jannada. Waa sida ay sheegeen warbixinayaasha barnaamijkan, iyagoo adeegsanaya ardaydu software kaasoo falanqeynaya sawirrada uu soo ururiyay telefishinka NASA ee loo yaqaan Pan-STAR Telescope. Ardayda ayaa markaa ka raadsaday walxaha dhaqdhaqaaqa sawirrada mashruuca. Dwivedi wuxuu sharaxay waxaa loogu talagalay in lagu daro oo lagu baro ardayda sayniska iyo cilmiga xiddigaha. Waxaan bilownay mashruucan bishii Juun. Waxaan dib ugu laabanay falanqaynta toddobaadyo ka hor NASA. Radhika Lakhani waxay taagan tahay dhanka bidix iyadoo ay weheliso jacaylkeeda oo loola jeedo saaxiibadeeda mashruuca ee Fadihi Fikiria. Dwivedi oo ah bare sare wuxuu sharaxay in asteroid-ku uu hadda ku dhow yahay meeraha loo yaqaan Mars, laakiin 1 milyan oo sano gudahood waxay bedeli doontaa dhismaheeda oo ay ugu sii dhowaan doontaa Earth oo loo yaqaan dhulka. Inkasta oo ay weli sii jiri doonto masaafo in ka badan 10 jeer masaafada u dhaxaysa dhulka iyo dayaxa. Dwivedi ayaa yiri asteroid-ka si dhab ah ayay u qaateen ardaydu. Asteroid-ka oo sidoo kale loo yaqaano meerayaasha yaryar ayaa ah walxaha dhagaxa yaryar ee qorraxda ku wareega. Fikiria waxay tiri ardaydu uma dabaaldegi karaan daahfurka masiibada haatan jirta darteed, laakiin waxay kaloo raacisay tani waxay ahayd riyo. Waxaan rabaa inaan noqdo cirfiid ama dadka baara xiddigaha. Waxay kaloo tiri waa mowduuc aad u ballaaran, mana jiro xad ay leedahay oo ah in la baaro booska, gaar ahaan fikradda godka madow. Halkaana waxaa inoogu barnaamijkeena aan uga hadlaynay labadii gabdhood ee Hindida ah ee baaray asteroid-ka ama dhagaxa ku wareega meerayaasha. aad iyo aad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.